الحمد لله وكفى والصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله أيها المسلمون، الله تبارك وتعالى بني آدم كوحو قليي امتحان درسي شهوات فربضا، شهوة حولها، شهوة عرورتا، شهوة قلمدا، شهوة مقعة، شهوات فربضا. لكن شهوات كبني آدم كإلهي قليي كوا ugu khatarsan waxa kamid ah hadayna ugu khatarsanay shahwada milkiga iyo madaxnimada iyo kursi raadiska iyo boqortooyada. Iblis markuu aabaheen aadam fitnayn rabay, waswaasin rabay si uu jannada uga soo saaro, halka irid ee uu fahmay inuu ka geli karo waa laba iridood. irida koobaadi waxa weeye waa milki jacayl, irida labaadna waxa weeye waaritaan iyo jiritaan jacayl. saas daradeed markuu sirahayay wuxuu ku yidhi yaa aadamow hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yablaa, ma ku tusaa geed haddaad cunto aad waari oodan dhimanaynin, boqortooyo iyo kursina aad heliyood ku waari. ibliis wuxuu fahmay aadamaha meelaha laga galayo iridaha ugu muhiimsani inay tahay kursiga iyo boqortooyada. meeshaasuna aabaheen aadam calayhi wacalaa nabiyina salaatu wassalaam ka soo galay oo uu dantiisii ka gaadhay oo jannadii laga soo saaray oo dhulka layna keenay oo rafaad iyo aafada ina haysataay ilaahay inoo qoray. nabigeennu sala allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu inoo sheegay in manaasibta iyo kuraasta iyo madaxnimada aad ku dadaali doontaan. sataxrisuuna cala alimaara, madaxnimada waad ku dadaali doontaan, dadaal adag baad u geli doontaan adduunka intaad joogtaan. maalinta qiyaamadana waxay noqon doontaa qoomamo iyo nidaamo iyo farta inaad dhexda ka qaninto tiraado allow maxaa ii geeyey. macaanaa markay ku nuujinaysood naaskeeda jaqayso magacii iyo jaahii iyo maalkii iyo amartaaglayntii iyo rooggii casaa iyo sacabintii fa nicmati almurdica, naaskeedii baad jaqaysaa. wabi'sat alfaatima buu nabi sal alla alay wasalam markay ku goyso naaska kaa goyso dhib iyo aafa markaasay ku haysataa. inay ku goynaysana shaki malo ahoo weligeed naaskeeda nuugi maysid oo ku dhaganaan maysid. maalin kaste naaska ay kaa jartaa laguu joogaa. madaxnimadu waa midda uu ninku ilmihiisa u dilo. imisaa nin wiilkiisa u dilay kursigii buu ku qabsaday. imisaa ilmo waalidkii u dilay kursi dartii. imisaa nin xaaskiisa u dilay kursi dartii. imisaa xaas ninkeeda u dishay kursi dartii. dadka kuwaad ugu jeceshahay ood cuntada iyaga ku hormarini, ood magaca la jeceshahay, oo aad wax walba u huri lahayd, markay noqoto inay kursi kugu qabsadaan waad khaarijini, uma quudhid. kursigu waa shahwada ugu halisan bini aadamka shahawaadkiisa. sidaas daraaddeed markay timaado ruuxa muslimka waxaa la doonayaa inuu taxadarkiisa qabo. war meeshani waa meeshii lagu halaagsamay. taariikhda markaad dib u akhrido oo sijillaadka taariikhda aad soo rogto, taariikh gaal iyo taariikh muslimba, caalamka wixii fitno soo maray intooda ugu badan waxaa sabab u ahaa kursi iyo raadintiisa. jagada iyo madaxnimadaasi mid ku fadhiya iyo mid ka riixanaya oo raadinaya baa adduunka soo rogay taariikhda akhriya. ilaa maantana adduunka waxa rogaya taas waay.
inta markaan ogaano مثال أي نسوق هذا النوع قواعد مثال كعادية تسالياش ما أنت وافر بديهن أتونكينا وإسوفر مي وحقر صون متشرو عام يقولون وارد سنة يا وآخرنا يا علماءنا وركوا ذي أقوياهن كإسكاب الداع أدون كما أنت وحقر صوني متشرو كي هو وحكلا قرصونايا ما لكن هذين تسالا سوق هذا النوع صوماليا وسوق هذا النوع ودن كاس ما أنت حالك يساوي له لقيبيي أو قيبسن لبربريي أو بربرسن dadka ku nooli intooda badan faqriga khadkiisa ay ka hooseeyaan dhalinyaradiisii ay badaha ku baaba'ayso farigelin shisheeye la liicaya oo cid walba doonaysa inay dantiisa ka gaadho mujtamaciisii uusan is haysanin dalka saa u yaala ee dhibkaasi haysto ayaa maanta koox yari ku hardamaysa hal kursi waxaad isweydiisaan dalkan maxaa halkaa dhigay waxaa halkaa dhigay niman kursi raadisa oo kadibna magaca qabiil huwaday oo isticmaalay iyo mid kursi ku fadhiyo u quuri waayay iyo shacab aan wacyi lahayn oo la isticmaalay saddexdaasaa isugu darmaday dalkan oo uu burburiyey saddexdii burburisay baa maanta 30 sano kadib meeshii laga biloobay baa dib loogu noqday reer bani israa'iil baa ilaahay wuxuu ku sheegay 40 sano inuu ilaahay ku imtixaanay tiih iyo jahwareer meeshay subaxdii ka guuraan bay galabtii ku soo noqdaan say u wareegaysanayaan meeshii baynu ku soo noqonnay luqaddu waa luqadii damacu waa kursigii waxa la isticmaalaya waa qabyaaladii luqaddu waa luqadii xasaasiga ahayd ee Soomaali laga taaban jiray meel laga rogaa jira furaha laga rogo waxa kale oo dhan ma diiriso laakiin marka la yiraahdo gobolkeena reerkeena deegaankeenna qabiilkeena jifadeena taasaa rugaha ku rogta furaha ku rogo furuhu waa ka furuhu waa furihi hadalku waa hadalkii raggu waa kuwii kuraasta raadinayay meeshii baan maanta joognaa shacabka wacyi la'aantiisina waa dheerta iyaduna waa sideedii waxaan jeclahay 3 farrimood diintu waa naseexo 3 farrimood inaan u diro 3 jiho oo hawshaasi khusayso jiho waa qolada kuraasta ku fadhida jihana waa qolada doonaysa inay ka kacsadaan jihana waa shacabka miskiinka ee masaalixdiisa lagu ciyaarayo qolada kursiga ku fadhida waxaan leeyahay haddii 1000 sano bal kumanaan sano lagu daayo nolosha lagu daayo kursigaana lagu daayo faraha lagaaga qaado waxa xaqiiqo ah inay imaan doonto maalin aad ka tagi doonto ama isagu ka tagi doono maalinkaana mas'uuliyadiisa iyo tabiicaadkiisa ilaahay hortiisa ku taala way ka horeysaa nin xilkas ah oo mas'uuliyad iyo culayskeeda dareemaya maanta kuma dhagdhago kursi Soomaaliyeed يا ما أنت عديها كم الدجال لمسيء وكرسي وقفت ليه أما وفوله لكن حل كسني ما جرت حل بان لجرنا ينسيدي سبب وحوي هي مركب واحد وقاتا كرسي ما باقي هذا نلورينا ما باقي هذا فرين طلبات دون يينا ندر وحوي هي وعيته بني آدم كو هدو قرآن كي إلهي سودتشي يصنّ دي النبي صلى الله عليه وسلم وسن كور هينين وحافي عن إنه كوانا قاتر دعدوين كأدون ككردعية إيشي سوقبانا يسيئو أخرين أيو ما أنت وحوي لما تنشر إلهي أمحل قرنين حوادث أدون ككردعية وآيات إلهي أو تاقوي وحلقو قاتوا
war aaway raggii kuraasta isku dhajiyay xaggay ku dambeeyeen ee cuquud min as-siniin ka talinaya caalamka meelo ka mida zaynul caabidiin ki tuunus aaway shaynul caabidiin dheh aaway butufliqa jazaa'ir aaway mubaaraki masar aaway ali cabdallah saalax yaman aaway qadaafigii 40 sano ka badan biliibiya ka talinaya aaway war aaway madaxdii adduunka waa tageen maanta haddaan heli lahayn wax inooga soo warramo waxa qabriga ku haysta iyo ilaahay hortiisa waxay la tegi lahaayeen wax badan baa laynoo sheegay laakiin lagu waana qaadan maayo ninka kursiga ku dhagan waxaan leeyahay kuwaana qaado qayrka iyo dhacdooyinkaasi agagaarkaaga ka dhacaya in badan aad ogsoon tahay fariinta saddexaadii waxay tahay sabab ha u noqonin kursi aad isku dhajinayso sabab ha u noqonin hal ruux oo muslima dhiiggiisa inuu daato waxaan ku xaqiijinayaa haddaad sabab u noqoto hal ruux oo muslima inay la xagto iska dhaaf in la dilay in la xagto dhibaata sababtaada ku gaadho haddii ay dhacdo ilaahay hortiisa maalinkaad soo istaagto adoo keliga oo qaawan adaa mas'uuliyaddeeda qaadi doona ku talagal تنازل كرسي لماذا دلانين كلمنا دلانين ummadda masaalixdeeda iyo danaheedana wax badan baa looga tagaa danahaaga khaaska baa looga tanaazulaa tanaazul waa khayr iyo maslaxo nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi kama fi sahih al-bukhari wa ghayri maalin isagoo khudbaynaya oo ummadda u khudbaynaya wiilkiisa xasan ayaa kursiga ayaa la soo fuulay minbarka nabigu waa jaleecay sallallahu alayhi wa alihi wasallam markaasuu wuxuu yidhi nabigu sallallahu alayhi wasallam wiilkaygan waa sayid buu nabigu sallallahu alayhi wasallam ilaahayna wuxuu ku islaaxin doonaa laba kooxood oo muslimiin oo waaweyn oo dagaalamaya ayuu ilaahay sabab uga dhigi doonaa in maslaxa dhexdooda dhacdo xasan ibn ali ibn abi talib sanadkii afartanaad ee taariikhda hijriga ayuu uga tanaasulay wixii la isku hayay muaawiyah ibn abi sufyaan radiyallahu ta'ala anhuma sanadkana waa sanadka lagu magacaabay sanadkii midnimada muslimiinta aamul jamaa xadiidkii bishaaradii nabiga xaqiiqowday wiilkaygu waa sayid ilaahayna ummadda muslimka buu ku islaaxin doonaa sayidnimada qaado oo sharafta qaado oo karaamada qaado oo nin kursiga xoog lagaga qaatay sharaf male nin la eriyay sharaf male nin ummadiisa u tanaasulay baa sharaf iyo qiimo ku nool adduunyo aakhiraba tanaasul oo maslaxada u tanaasul fariinta labaad waxaan doonayaa inaan u diro kooxdan isku magacawday murashaxiinta madaxnimada ee doonaya inay kursiga ka riixdaan ninkaas ayaguna ku fadhiistaan fariinta koobaad aan u diray waxay tahay waad ogtihiina waxaan idin xusuusinayaa kursigan iyo boqortooyada ilaahay baa gacanta ku haya ciduu doonuna siiyaa qul illahumma مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء دغال iyo dadaal loo galayna laazim maaha in kursiga lagu gaaro midaan dadaalin buu ilaahay siiyaa mid dadaalay oo dagaalamayna ilaahay waa ka qadiyaa ilaahay baa hayo gacantiisa ku jiro bixiye bal horta rumeeya waa mid labaade kursigu waa mid laba ruuxna ma wada qaado tobanna ma qaado toddobana ma qaado hal buu qaadaa kursiga halka qaada waa midkii Soomaaliya intay isku laysay la qaybiyay oo gaaladu intay u sameeyeen landis fulaan lagu qanciyay adiguna madaxweynaha tahay kursigii ayaa markii
وكوة في الله ويا وحي نقطي إن طبعاً كرسي أو كلا الله صاره أو لوقا عيون اللي هذا اللانديس كان مدحوين فلان كان مدحوين فلان كان مدحوين فلان والكرسي وامد إلهين النبو أقري هذه حقيقة بها كما دبعوها مدى الصدح هذا اللي وحي تهي إن بدن أو كرسي رادي سو كوهن قودي باتشرته دنبنا كالراعي إمي سآوي دقال أوغياشي آوي دات رجي دال كان سو بربوريي كرسي الرادين آوي انت كرسي كغفريستي ويريهن كل قودنا وحي قاتين وحي دالك كرعي إلهي بين الله ارتقيان ميدان كوانا قادنين ميدان وحكو قادنين waxaan leeyahay luqadda qabyaalada daaya hadalka xanafta le daaya fitnada kicinteeda ka fogaada si mas'uuliyadi ku jirta u dhaqma yaa dalka u tura dadkan u tura duruufta ummadda haysata u tura ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa قبيلة لجوع العلينيو إلا كعنيو إلا لجوها الليو إلا لجوه دارنيو ورصوتي هالكائن الدكتور ما ورصوتي أنكوه جوني ما ورصوتي أنكوه شبني ما ورقرمي شاتي كلا إنه صحيرات هاي صدق سنة كذب قرمي شاتي كلا صحيرات سو يدي أون ما ويدي لكن وش يدا إسبدلي شلي وحي هاي جنرال فلان بوها شلي ما أنت نوا سياسي فلان لكن واحد قالوا يزبد لي متشرو وعن لا يفتنها أباب لنا آفنا ذلك يدتك صوها وقلنا قننا شرنا هرسيدها وقلنا قننا فتنة لما ردميو شرنا اللي اسكمت دريريو وان لقى فقادة وان لقى تحدرا كهرتك بوليه كدبتك مله آفدو هذي هرتوه لا عدنا نول بيسا ميسا دروس تدنا وانو هينا وحلا يا هي ونقدم بيسينا يا كلمات كان قلدا كلها ومدن آدي سكين إنسان الذين مظاهرات سمية أو صاحبها يبنانا دا آدي سكين إنسان الذين دستور كان نو أقل وروحان دين الله مشوا مقدشو وروحان دين الله مقدشو دين كان نجا يقانا وربشيبة إنت سوق رحبة كرعة ورمالين كيبة إنت سال جدي لا ورمجال ذي هبّا نحن ذي الله كفافصن وركو حدت كلايات تفكأ أما الدين هالشيطان أما كوك لها هذا وروي فضد هيدتك السوء إيمان ينحدو ذا إن بلايا لقى قرحيو ورمد با كل حلو من كرو إسقرحين كريا ورمد با كل حلو من كرو ضدك كذا تحبذين كرو اللين كريا ورأيك إذا كنترولي كرينين وهذي دقاقان حولها بربريني هنتيذنا بربريني أو بوبي يدعبا إيمانا يهنتيلا بربريا إيمانا يسمنا كنترولي كرتان دولة دينا ما كنترولي كرت بين واي يا دولة ده هو وين با كنترولي كري واي مظاهراتكم مركي دقاقان دad كان وحا كجرا دad حلم كسأ دad وحا كجرا وحبوبا عصابات إجرام با كجرا يا ورمريكان با كنترولي واي أو فرنسيس با كنترولي واي أو إنجليز با كنترولي واي أو دولدي حق بدنا با كنترولي واي ومدو هذي دقائق لما كنترولي كرا واحد دعي كرنا مصا دالين كرتان إسويدية يا مسؤولية دقادي دونا إسويدية يا مسؤولية دقادي دونا مركب أمدن كو خماريسان أو كلية وشددي إنه أي تهي إناد كو أبورتان كلية بريشر آد كو أبورتان قلدا إذن كسو هرشيدا أو وحن ليدا هذو محوء هاي عالمك أبورتان بريشر كو أبورتان وشددي إنه إنت تهي واحد دعي كرا يديك دادن كرا يعافد إيمان كرتا يهنتنا بربوري كرتنا هذا واحد بدن كأكسون تهين ما حد خماريسان ما حد لقى أمده وجو خماريسان ما حد مصالح ذا وجو خماريسان ما حد هنتي ذا وجو خماريسان
bimujarrad inaad kursi gaadho aan la hubin inaad gaadhi doonto maxaad ugu khamaaraysaa dastuurka qaba waa xaq dastuuri ah war dastuurkan qabay waa kee ma kii gaaladu idin dejisay Soomaa kii idin kala qaybiyay Soomaa kii landhiska idin ka dhigay Soomaa dastuurkan aad sheegaysaan haddii uu kitaabka Ilaahay iyo sunnadii nabiga ka hor yimaado waa xaq dastuuri ah dastuurkiinba aqligiina iyo wacyigiina hadduu heer ka joogo maanta aad garan la'dihiin war maxaa iimaan kara maanta ummadda meesha la isugu keenayo maxaa ka dhalan kara qiyaas la'dihiin mas'aladu siyaasadeed ma mas'alo dawlad loogu hiilinayo ma mas'aladani wax weey waa muslimiin lagu khamaarayo dhiig yar oo ruux muslima ka daata ayaa ka muhiimsan dhiig yar dhimasho ma aha dhiig muslim oo daata oo dhaawac ku daata ayaa bil wallahi thumma wallahi ka muhiimsan kursiga iyo waxay u ordayaan nabi maxamed baana sidaa yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi war ilaahay ka cabsada war ilaahay ka baqa war aakhiradiina ilaaliya war ummadana ku khamaarina war dalkan dhibka ka daaya war waxan kada tafarsameeya war isu tanaazula war tartiib u wada hadla war wixii maslaxa isla xaqiijiya war damiciina dib u liqa masaalixdi damiciina khaas ka ah maslaxada dalka iyo dadka ka hormariya ilaahayna uga baqa tabaaraka wa taala fariintayda ugu dambaysa waxaan doonayaa inaan idhaahdo shacabkan miskiinka ah ee lagu ciyaarayo ee maalinna magac qabiyaaladeed loo soo huwanayo maalinna magacyo kaleeto loo soo huwanayo rag damac iyo kuraasi iyo shahwo kursi haysana ay maalinba dab ku daadinayaan shacabkan miskiinka waxaan leeyahay shalayna wixii meesha ina dhigay waa wacyi xumadeena nimankii jabaadaha hogaaminayay gaaladu ay soo taageertay dalka burburiyay waxay inagu kacsadeen qabyaalad iyo reehebel markaan gubanayna inaga dabkii ku gubanay maantana waa sidii way cid guban doonta oo dabka ku guban doonta waa inaga waa shacabka waa hooyada waa caruurta waa ardayga wax baranaya waa curyaanka war inaga gubanayna waa dalkeeni waa deegaankeeni inagii baa gubanayno dab ku daadanayna maslaxadeena inaan garanno waayo inay isaga keen khaldamaan ma aha cid maslaxadeena ficlan ka shaqaynaysoon dan inugu wadanin iyo nin dantiisa wado kursi doonayo awrka inugu kacsanaya inaan kala fahmi weyno waa wacyi xumo in layna yidhaahdo soo baxa oo khatarta u badheero sidii dab laynugu dabaalalay oo kaleetana waa wacyi xumo inaan gacmaheena ku burburina amnigii dalka iyo deganaanshihiisa iyo xasiloonidiisuna waa wacyi xumo aqoon darrada iyo wacyi xumadana waa wax laynooga faa'iidaystay waxaan dhihi lahaa danteena aynu garanno nabigeenu wuxuu ku taliyay salawaatu rabbi wa salaamu calayhi fitanka ka fogaada meesha ay ka dhacayaanna ka durka ha isku dheerarinina hana dhudhuminina ciddii shanta la gasha tobankay la geli maxaad u dhimani maxaad dabka u geli maxaad lagu dili maxaad dhiigaaga u daadin maxaad isu rafaadin maxaad heli qoladan kursiga doonaysay shalay bay hayeen qaar ka mid ah maxaa ku soo kordhay bal isweydii kan hadda ku fadhiya markuu imaanayay sacabkaad u tunteena waxaad tidhaahdeen farmaajo iigee maantana waxa weeye halkaasay maraysaa war midina malab idin daaqsiin maayo midina dhulka cagaar idinka dhigi maayo ninna shidaal idiin soo saari maayo ninna duruufihiinnan ka jawaabi maayo iyo aafada idin haysata ka jawaabi maayo aan idiin sheegay danteenna aynu garanno fitankana aan ka fogaanno yaan layna isticmaalin ayagana wixii maslaxa aan kula talin oon gacanta qabanno gacanta inaan qabanno warkada dalka annagaa leh annaga lexjecla naga haysa haddayna adiga kaa haynin hadday ogaan lahaayeen shacab is-hortaaga hadduu jiro inuu jiro hadday ogaan lahaayeen shakiga kuma jira waxyaalaha qaarkood way ka gaabsan lahaayeen laakiin waa layna tijaabiyey waana layna arkay
marka waxaan leeyahay wacyi aan yeelanno masaalixdeenna aynu garanno danaheenna aan ilaashanno nabigeenna wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sheegay markay fitanku kacaan oo aafaadku sidanoo kale u istaagaan danahaaga khaaska aad danta caamkaana isaga tag nebi maxamed baa yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh danahaaga khaaska aad dukaankaaga aad ganacsigaaga aad hawlahaaga aad mudaaharaad iyo kursi iyo orod iyo qajajac iyo isaga tag dantaada ma ahe ka danayso yaa leh macnaha nebi maxamed baa leh salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa haddaynu yeelaynaynu qaadanayna wa isagaana dantu inoogu jirta meesha maanta aynu joognaayey waa meel inaynu ka soo kabanno ka soo waaqsanno ay qaadan doonto cuquud qaadan doonto tobanaan salay qaadan doontaan maxaa yeelay shalayna qabyaalad baa laynoo isticmaalay maantana dowlad goboleedyaa laynoo isticmaalayaa dowlad goboleedyadan yaa dhisay sistamkan yaa soo dejiyey gaalaa soo dejisay beesha caalamka haddaad maqasho beesha caalamka waa dana gaalo waaye aad baana uga xumahay mutacalimiintii soomaalidu in warkooda ku bato beesha caalamka beesha caalamka beesha caalamka noo soo gurmato beesha caalamka war beesha caalamku yaa waay beesha caalamkay kuu soo gurmanaysa yaa waay caqli xumadaada iyo waxyi xumadaada intaad walaalkaa isfahmi weydeen walaalkaa baa waxaad leedahay beesha caalamka ay beesha caalamka beesha caalamku soota adduunka burburisay maaha waa adduunka halkaa dhigtay maaha war wacyigeenna aynu garanno soota halkaa ina dhigtay maaha qabyaaladii ree hebel iyo ree hebel ahayd unbaa maanta waxaa loo bixiyey landis iyo landis xaggeed ku aragtay dowlad goboleed dowladdii dhexe ka awood badan xaggeed ku aragtay adduunka xaggee ka jirtaa oo dowladdii dhexe amarka ka soo baxay maya dhihi karta oo diidi karaysa xaggeed ku aragtay mihaal qaata billaahi calaykum waa idinku dheereeyey kenyaynu hadda joognaa countiga governaha dowlad goboleedka madaxda ka ah dowladda dhexe amar hadday bixiso isagoo jeebaysan baa lasoo qabanaa ma tahay mise ma aha etoobiya waatan kilillo weeye kililka ninka madaxweynaha ka ah dowladda dhexe hadduu amar ka soo baxo isagoo jeebaysan baa lasoo qabanaa wayna dhacday xaggee buu ka yimid systemkan markaa ummaddii inta lagu qaybiyey nin gobol joogaayo uu dhihi karo maya oo masiirka ummadda siduu doona ka yeeli karayo systemkaasi yaa kuu dejiyey yaa kuu keenay yaa ku geliyey ma isweydiise ma dantaadaa ma isweydiise waa markaan leenahay meesha layna geydhsiiye godka iyo booraantana lagu riday inaan ka soo baxnaayey waxay qaadan doontaa cuquud aad u dheer iyo juhdi iyo dadaal iyo wacyi ummad wax fahansan oo dalkeeda iyo deegaankeeda ka danqanaysa oo danaynaysa ayay u baahan tahay xaaladda noocaas oo kalea marka waxay u baahan tahay muhimna ah shacabka soomaaliyeed oo meelaad joogtaan badanihiinna garta wacyi iyo fahamna yeesha masaalixdiinnana u istaaga ma aha rag iyo hebel ma laakiin masaalixdiina dalkiina iyo deegaankiina iyo diintiina iyo dadkiina sallu wa sallimu ala khatami al-anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda allahumma 'an as-sahabati wat tabi'in وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك